الله الرحمن الرحيم وما سنتين walaalow bacdilsalaan magaalada xoogaa waxa maanta ka dhacay taagtaag labadan beri jiray oo ahay arrimaha doorashooyinka siyaasiyiin kuraastoona iyo ilaalo madaxweynaha ilaaliniisii kuwaasa iska hor imaaday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kuwaasoo risaas yar ayagoo shir ku jiro ay ka dhex bilaabatay ma ilaalada madaxweyne Goodlawe iyo madaxweyne ku-xigeenka dabageed baa ku dagaalamay beledweyne maya ilaalada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ciidamo ay wateen oo xoogaa muran dhex maray kadibna waxay gaartay inay gacmaha iskula tagaan muddo daqiiqada ilaa 10 daqiiqo oo dagaala gacmaha la isku ka dhacay taasoo marmarka qaar magaalada laga dareemo hubka waaweyn la isku adeegsanayo khasaaro noocee ka dhashay iska horimaadka walaalow khasaaraha ka dhashay laba qof shacaba iyo qof ciidamada madaxweynaha Goodlawe ilaaladiisa nin kamid oo ka dhintay labadaas qofood waa maqlay laakiin aniga dhaawac laba qofood anaga gaari ayadoo gacmaha lagu sida anaga gaari saarnay oo nooha oo ku qaadno isbitaalka weyn wax ka geynaba maxaa ka jira wararkan horta sheegaya Yuusuf Dabageed iyo Cali Goodlawe madaxweynaha Hirshabeelle kuraasta beesha adigu aad ka dhalatay hagidooda iyo maamulkooda in la isku haysto labadooda isku dhacsan yihiin walaalow waxa weeyaan horta waxa meesha ka jira waxa la isku haystaa waa arrimo siyaasadeed waxa la isku haystaa waa kuraas shalay waxa wararka qaar sheegay in ka saana meel la joogo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka isku gaceen laakiin dadka deegaanka iyo sawir magaalada marka ka fiirido waxa dareemayay doonka maamulka dhibaatada ka jirta waa in dhinac kuraas loo soo wareejiyay walba jifa kasta ay leedahay ku sugayna anaga iskale anaga u tashanayno waana ta Soomaaliya waxa ka socda doorashooyin lagu tilmaami karo wax la yiraahdo nin jeclaysiga ka socdo marka jifa kasta waxay deelaysaa anagu ninkaada ka jeceshay marabne ninka anagu aan jecelna kursiga la rabna marka waxa dareemaysaa nin walba mas'uul waxa dareemaysaa aagaad inuu kala xiran tahay oo tiro badan technical midda dawladda ka tiro badan ina magaalada la soo galay oo dareemaysaa culays iyo saxnad nin walba mas'uul oo musharax oo wataa ilaalo ama 30 ama 50 ana ka yareyno khub nuuciisa kala duwan iyo technical qoobaysan marka waxa dareemi kartaa culays weyn in beeshu sanadkan kuraasta ay soo gelido idinku dhexdiina beel ahaan ayaa marka isku haysta kuraasta ma aha Goodlawe iyo Dabageed ma aha idinku dhexdiina ayaa haba u badnaado madaxweyne ku-xigeenka iyo reerkan idinku aad ka dhalateen ayaa qaabkii kuraasta loo hagi lahaa isku haysta walaalow kulli waxa la isku haystaa kuraasta madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynuhuba meel fagaaraha dadka ku yireen in kuraasta soo bandhi doono waa furan yihiin tartan xalaal ah loo galo markii wararka qaar waxa la arkay marka kuraasti oo gaar saddex kursi laga shaaciyay saddexda kursi waxay ahaayeen kuraas maalmo ka hor magaalada geeskan ina boombola la qatar kamida beesha gaajecel ay xirteen ay kursi xilgibaan hore ekis daareen jiisu ku fadhiyo kursigiisa iyo laba kursi oo kale to beesha leedahay taasoo waxay keentay xal inay dhalinyaro ishubayaan magaalada gan isku ay walaamiyaasha la soo istaageen qoriyo taas waxay keentay in saddexdii kursi hadana maanta dib loo eego dibulkoodii iyo dadkii soo xulay iyo wixii hadana markii ka gaani dagaalkan u dhacay dib looga noqdo marka waxa dareemi kartaaba kuraasti magaalada tiilo loo tartamay in dadka qaar ay rabaan in dad gaar ah loo xiro dadka kale ay rabeen kursi furnaado nin walba nasiibkiisa boqol ku gaas qof cid cod ka siiyaan in ku kala baxaan dadku saas ay rabaan laakiin dadka qaarna ay madaxweyne ku-xigeenku dadku watan oo rabeen kuraasti dadku gooni u xiro xaaladdu markaad qiimayso Shaaficiyow kuraastan 12 ah caqabad weyn baa ka taagan sidee bay ku dhici kartaa oo lagu dooran karaa maxaa ku muuqda beledweyne ugu dambeyn cawaaqibka sidee u noqon karaa laalow hadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay qaataan waqtiga ka dhacay magaalada Galkacyo waxay noqon doontaa raad fiican magaalada ku riidi laakiin walaalow haduu madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku isku dayaan kuraasta in la xiro waxa ima kan raad xun waaqas xun dhibaato aan laga soo noqon iyo mustaqbalkiisa dambo inuu mugdi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku uu geli doono taasoo ay riibi doonto dhaxal xun iyo madawyo xun ay riibi doonto sababtoo tahay in walba kursiga soo doontay waqti qaras ka baxay hotel uu degnaay intaas oo waqti uu ku jid uu galiyay intaas oo qofood ama intaas oo dad meeshaan la joogay ama ilaalinay intaas wuxuu rabaa inuu natiijkiisa qaado banaanka aas la tago la wada tartamo
marka hadii la isku dayo dad gooni in loo xiro waxay muuqanayso markaas ina waaqif xumo laga soo qabsan karin iyo dhaxal madawyo kala duwan leh inay taasoo dheedoon laakiin waxaan ka rabnaa mas'uuliyiinta ugu sareyso maamulka meesha joogto inay talada ayna la muuq waxa ay tooda u muuqanay ee shacabka Soomaaliyeed oo abaarta dhibaatada soo gobolka degan inay u muujiyaan dabac iyo bisay ana u deeyaan kuraaso si xar iyo xulaala ay ku gacdo bulshaduna ay ku qanacdo dhibaatada iyo khasaaraha maanta dhacay mid ka daranyoona imaanay loo xiray walaal boontay laakiin ilama ahan dadka qaabka wax loo wado kaabeen dhibaato ka imaan doonto dib wax lagu muqooniyo taas ay muuqato